Muxuu yahay ceelkii cadaad, ceelkii biyihiisa madoobaa, ceelkii lagu xantinayay dhiseen jiinka. Halkee ayuu ku yaalaa ceelkan? Maxaase ku dhacay dadkii booqday? Su'aalahaas oo idin iyo kuwa ka badan waxaan ugu jawaabi doonaa muuqaalkeena maanta. Assalaamu calaykum. Soo dhawaada barteena cusub ee Taliyo Tusaale. Halkan waxaan ku soo gudbiyaa taariikhaha, qisooyinka nabiyada iyo dhacdooyinka. Marka ugu horreysa aad na soo booqato hadday tahay nagu soo biir oo channelka subscribe dheh. Waxaan maanta idiin soo bandhigi doonaa taariikh xiise leh oo ku saabsan ceelka Barwood, meel ka durugsan dhulka lamadegaanka ah bariga fog ee dalka Yemen. Waxaa ku yaalo god la rumaysan yahay inuu yahay mid meesha ku yaalay malaayiin sano. Godkani ayaa leh taariikh iyo sheekooyin murugo leh oo ka yaabiyey dadka caalamka oo dhan. Bal aan eegno waxa uu yahay ceelka Barwood, taariikhdiisa iyo sheekooyinkana la xiriiriyo. ceelka Barwood waxa uu ku yaalaa lamadegaanka Yemen ee u dhow soodinta uu leeyahay Cumaan. Wuxuu ku yaalaa gobolka Almahra. Waa ceel qoto dheer aan la garanaynin sida saxda ah ee loo qiyaasi karo. Wuxuu balaciisu yahay 100 fiit, waxaana loo maleynayaa inuu hoos u qodan yahay 330 fiit, laakiin waxaa jira kuwa ku doodo inuu ka dheer yahay 820 fiit. Mana jiro qof weligiisa gaaray gunta hoose ee ceelka. Haddaan wax yar ka hadalno qisooyinka laisla dhex mara ceelkan, waxaa la sheegaa in ceelkan uu dhisay Nabi Suleymaan si uu jiinka qabuuro ugu noqdo, maadaama Ilaahay Nabi Suleymaan u sakhiray adeegsiga jiinka. Qiso kale ayaa leh waa meesha lagu kulmiyo arwaaxda gaalada iyo munaafiqiinta. Qiso kale ayaa leh asagoo jiinka adeegsanayo mid ka mid ah boqoradii Ximyar ayaa qoday. Boqorkan wuxuu ahaa mid hanti iyo awood u saaxiib ah ilaa dadkii ka agdhawaa ay damcaan hantidiisa. sidaa darteed waxa uu bartay sixirka madow iyo adeegsiga jiinka. Waxa uu jiinka u isticmaali jiray si ay u ilaaliyaan hantidiisa, waxayna jiinka qodeen ceel balaciisu yahay 100 fiit halka uusan leen wax sal ah ama dhammaad ah. Waxay hantidiisu ku rideen ceelkaas, laakiin marka uu dhintay boqorkaasi uu ceelkii degay jiinka. Shaqaale ka socda wakaaladda wararka AFP ayaa dhowaan dulmaray godka iyagoo isticmaalaya kaamirada droniska, waxayna qabteen muuqaal cajiib ah oo dadka ka daasoona. Si kastaba ha noqotee, xitaa iyadoo diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay si toos ah ugu dul haabeysay ceelka, haddana waxaa adkaatay in si toos ah loo arko gunta hoose ee god. dad badan ayaa ka sheekeeya in ceelka Barwood uu leeyahay qisooyin badan oo halis ah iyo waxyaabo qarsoon. Waxaa jira sheekooyin ka hadlayo in ceelka uu yahay meel ay ku nool yihiin jiinka iyo shayaadiinta, taasoo sababtay in dadka deegaanka ay ka baqaan iyo in ay u dhowaadaan ceelka. Sidoo kale waxaa la sheegaa in ay jiraan dad ku dhacay ceelkan dib loo arki waayo iyo in ay jiraan dhawaaqyo cabsi leh. Amar Haashim Maxamed oo ka soo shaqeeyay ciidan u dhow ceelka ayaa qoray urtu waxay ahayd mid aan loo dulqaadan karin. Inkastoo uu aad u uru ceelka, haddana noocyada kala duwan ee shimbiraha ayaa inta badan la arkaa iyagoo duulayo kana baxayo ceelka. ceelka Barwood waa meel ka mid ah goobaha ugu yaabka badan oo aan ilaa hadda la haynin xaqiiqada dhabta ee halkaasi ka jiro. Inkastoo uu leeyahay halis iyo cabsi, haddana waa meel cajiib ah oo ku habboon in la barto taariikhdeeda iyo sheekooyinka la xiriiriyo. dadka qaarna waxay leeyihiin xaqiiq loo haynin darteed ayay dadka ugu baqaan ceelka, sidaa darteed mal awaal ayay u sameeyaan. haddaba adigu maxay kula tahay daawade? Amal awaal baa mise waa run inay jiinku degan yihiin ceelkaani? halkaasi ayay noogu eg tahay qisadeeni maanta. haddaad halkaan nala soo gaartay, muuqaalka like saar oo asxaabtaada la wadaag. Bye.